بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غيرت السلام يا هانتي مركز تو جوجتان سو دوادا صاحب بيال سو دوادا وصاحبك عبد الحكيم ماستر كود وقت جوجا هذه وعنا والاليا سو دوادا واي هي حالدا waa iska degan yihiin wax dhibaato ma laha marka hore joog waa iska degan yahay carada xoogaa baradweyn biya iyo waxaas iska jira mooyee wax kale oo dhibaato ma jiraan ciidamadii Hiiraan State-na kulitaba waxa way howlgaladoodii iyo amnigii ay sugayaan ayadoo xalay mid kuwa xoogaa gabar qadqashaada ay xataa xalay gacanta ay ku soo dhigeen ciidanka amniga Hiiraan State kulitaba waxa way joog waa iska degan wax dhibaato ma leh waa yahay maxaa jowhar ka socdo okay dhankaas ayaan u wareegaynaa soo dhawaada marka hore muuqaalka noo share garay oo like to noo saar oo haddii aan ugu cusub tahana page-ka noo follow garay oo YouTube-ka page-ka aan ku leeyahay iyo halkaas kanaalkaasna soo booqda Cabdixakiin Maastiko subscribe-ka soo saaro gambaleelkana soo furo soo dhawaada marka waa yahay ninkii muumin eeray ahay jowhar ayaa loogu yeeray jowhar ayuu tagay waxa uu yeeray dabageed iyo cali guudlaawe qorshaha loogu yeeray muxuu yahay maxay tahay qorshaha ay wadaan cali guudlaawe iyo korore iyo dabageed waxa weeye kolaytaba horta waxa waaye barnaamij waxay ku jiraan socon weynaye aan orodno haddii marka socon weynayo orodna baashi ay taagan tahayne dee waa u jeedaan waxa ka imaan kara iyo waxa ka dambeeya sida xal noqon doono waa yahay waxa la wadaa barnaamij waxay isku afgarteen saddexdoodaas waa cali guudlaawe iyo korore iyo ninka la yiraahdo dabageed waxay isku afgarteen in gudoomiyaha gobolka Hiiraan ee qaybta Kirshabeelle ay u magacaabaan oo laan qayb jin Hiiraan waa iska wada Hiiraane laakiin booska hadda oo Cabdullaahi Axmed Maalin Sufurow ayaa waxa la yiraahdaa lagu bedelo ninka la yiraahdo Muumin Maxamed Xaale ama Xalane sida u taqaanaan Muumin Eelay wagar oo yiri ahay waayahay qolooyinkan shalay markii ay soo magacaabayeen Cabdullaahi Sufurow waxay u soo magacaabeen in canshuurta gobolkaasi oo u leexiyo in wixii ka hor yimaada oo la diriro oo halkaasi iskor imaadiyo xawaadle gudihiisa ah ka sameeyo Cabdullaahi marka taa waa sameyn waaya Cabdullaahi Sufurow sababtoo ah maxaa marka Cabdullaahi marka wixii loo soo idmaday ama sida loo magacaabo sheekada inuu sidii marka u soo magacaabay inuu ugu adeego maxaa diiday waa marka maxaa diiday oo Cabdullaahi adeegaas u qaban waayay taasi waxa diiday ayaa idin sheegaya Cabdullaahi Sufurow ninka la yiraahdo waa nin reer magaal ah waa nin reer baladweyne waa ciyaalkii reer baladweyne nin haddii oo magaalo markuu dhashana dhibaato iyo fawdo iyo qarrac ma rabo qalooc kastuu qaloocan yahay ya iyo si kastoo u damac xun yahay oo u iimaan daran yahay oo u tuugsan yahay ma samaynayo inta badan 99.9 ninka hadduu magaalo ku soo barbaaray nolol magaalo soo arkay isdhexgalka bulshada oo wax ka yaqaano oo ku soo dhexdhaqmay bulsho wada ilbax ah haddii oo ninka noocaas yahay waa iska ilaaliyaa dagaal iyo in dhiig daato iyo jaafaad jiriq wuxuu leexsan kara wuu leexsanayaa wuxuu af Soomaali ku gidi kara waa ku gidinayaa wuxuu qasi kara wuu qasayaa laakiin oo iskoorimaad iyo qori iyo xabad ma yeelayo ninka noocaas ah Cabdullaahi marka waa nin noocaas ah taa waa diiday waa la fikiray marka dabageed iyo korore iyo ninka la yiraahdo cali guudlaawe bariyahan waxay uga shidan tahay jowhar dhiiqo ay uga shidan tahay waa la fikiro waxa la ninkii 6 bilood miya meelaas oo sii maraya Cabdullaahi Sufurow ahay waxna waa qaban la iyo canshuurtii magaaladii waa naga soo galay meesha waa baahida nagu dishay kanaacada nagu dishay meel u baxna aan la nahay sideen wax yeelnaa waayo waxa la yiri meeshaas aan keeno mid jaahil ah oo reer baadiya oo mooryaan ah oo dilaa ah oo macangag ah oo wuxuu Cabdullaahi sameyn waayay ama qaban waayay inoo qabta aan raadinaa la yiri halkaasna aan geyno dabageeda soo booday oo yiri Allah ilaahay ninkaas anaa hayo ninkaas nimo Cabdullaahi Sufurowna ka didi karin ilma adeerna ay yihiin baan idin hayaa yiri waa kuma ali waa Muumin Eelay ya Muumin Eelay aha Allah ilaahay isha ayaad ka ridaa yiri isha ayaad ka toogatay dabageedow
muumin eelaay noo wacaaliyey si degdeg ha noogu yimaado muumin eelaay waa loo yeeray waa baxay waa tagiye barnaamijkaasaa wadnaa ka warnaa yidhi conform uu yidhi ha anaa majixinjixe ahuu yidhi benita mussolina oo kaleento anaa ahuu yidhi ka tarabiil marinayo yidhi waxaas dhan cashuurtan anaa joohar idinkugu soo shubayuu yidhi saa waa ummigaas aad aragteen oo jaahilka ah ha gadaalna waxaa ka riixayo ahey gadaalna nin baa ka riixayo daba taagan waa yahay okay sidii ayaa marka conform la yidhi marka saacadaha soo socdo cabdullaahi sufurow xilkaa laga qaadayaa waxaa lasoo wadaa lasoo magacaabayaa ninkii ahay muumin eelaay waxaan leeyahay marka mid ayaan rabaa marka fariin inaan aan halkaa uga faa'iidaysto hawada u mariyo dabaged iyo karoore iyo jinijaan iyo cali guudlaawe iyo kirshabeelle iyo baktigooda dhan halkaan ayaa mid oga dirayaa marka haddii damiciinu noqday in wax la dhibaateeyo in canshuurtaas gobolka iyo magaaladaas aad boobtaan nin idiin boobana aad yacni hesheen xaqiiqatan waxba idiin suurtoobi maayaan muumin eelaayna waa la iska qabanayaa haddii aad soo dirtaan muumin eelaay waa meeshuu daaqadda uga bixi lahay meeshuu daaqadda uga bixi lahay weeye asna dhegtiisa ha ku dhibacda muumin eelaay adeerow maxaastaadaasaa iska haysatay oo kuu irmaaneed oo hay-adahay waxaasaa iska baadi jirtay oo milkiilaha maxaasaad aheedee haddii maanta hungurigaadii noqdo gobolka dhan yaa maxaasaa ileen qaadi weysay maamuli weysay haddii marka gobolkii dhammaatiri dushaa u ridanayaa adeerow ceel weynaa lagugu ridayaa runtaan kuu sheegaya aniga ceel weyne ayaa lagugu ridayaa muumin eelaayo taa ogow aqoonteeda ma lihid cilmigeeda ma lihid yaa gobol dhan ma hoggaamin kartid degmo yar ayaad hoggaamin weysay oo aad nidaamsan weysay oo milkiile aad ka ahayd haddii maanta lagu yidhi marka gobolkii dhammaay ayaan dusha kuu saarnay muuminow la kace qaada haddii lagu yidhahdane wallaahi waa la ku feesaa anaa ku dhahaya haddaba anaa hadda ku leh waa la ku feesaa ilaah baan ku dhaartay sheela moortaan ugu dhacaysaa qolooyinkaan marka dabageed iyo cali guudlaawe karoorana waxaan leeyahay adayaalow damiciina idiin suurtoobi maayo hirshabeellena biyobaxadaan ayay la tagaysaaba haddii hirshabeelle beledweyne ay ka sii shaqayso biyahan markay dhammaadaan dhagahaas ha lii duro dhagahaas sidii gabadhii dhagaha ha la ii duro haddii hirshabeelle ay ka harto kuwa beledweyne ka joogo haddii ay maamulkaas iyo afarta tuugo beledweyne fadhiso haddii biyobaxadaan iyo biyahanba ay ka dambeeyaan yaa waxaan sheegaaba xaaraan weeye waxaan sheegaa waa xaaraan waxba kama jiraan muumin eelaay soo dira marka muumin eelaay ha yimaado haddii marka muumin eelaay oo iska dhaadhiciyey anaa xawaadle xoog wax uga soo dhicinayo anaa dilayo laynayo kii iswaalaa anaa cagta marinayo wallaahi adaa ku baxa muumino taas ani waa kuu sheegay ar muxuu yidhi ninkii cabdixakiin ahaa ina timajirac ahaay ar walaalow gacalow wuxuu yidhi ha dhowtay hala soo boodin haddaan kuu sheegay ani waa kuu digayaa ceel weynaa lagugu ridayaa ka joog hadda ka joog bannaankaa taagan tahay gobolkaas dusha ma saaran kartid mana qaadi kartid aqoonteeda cilmigeeda iyo ragnimadeeda iyo dadnimadeedana ma lihid runtaan kuu sheegaya aniga maxaas degmada maxaas ayaa adeerow macaanaan ognahay sida ay tahay oo wax aad ka qaban lahayd oo xataa quruxsan lahayd deegaankeedaas oo mashaariic waxba keensan lahayd oo hirshabeelle tuugada ka soo boobi lahayd wax nin ragoo wax qabanaya haddii aad tahay laakiin in lagugu adeegtaa lagu soo dirayaa kow dheh balse adeegaa ka dambeeyo adeeg ayaa ka dambeeyo waayahay marka asxaabta waxaan leeyahay marka waqtiga jooyiga hadin wacnaada muuqaalkaana hala sheer garay oo like-ta iyo share-ta oo faraha maxaad ka haysto faraha balaaya hadi ka gashmaan idin iraadaa muuqaalka sheer garay oo like-ta saara oo asxaabay dhammaantiin meel kastoo aad joogtaan waa idin salaamayaa waxaan sugnaa muumin eelaay iyo kirshabeelle cali guudlaawe yaa ayaan sugaynaa bal waxay saacadaha soo socda ee sheegaan haddii muumin eelaay soo diraanna waa kaas waa la arki doonaa insha allah waa idin salaamay dhammaantiin meel kastoo aad joogtaan waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu